بسم الله الرحمن الرحيم كل وناكسن داوديال كسو دوادا برنامجka bandhiga HBN barnaamijkan gabiihaba maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa Israa'iil iyo Suuriya suurtagal ma tahay inay yeeshaan xiriir dhanka diblomaasiyadda waa su'aasha ugu weyn ee la isweydiinayo imikan ah mid kamid ah wararka ugu waaweyn ee ka jira gobolka bariga dhexe arrintan waxay soo xoogaysatay kadib markii madaxweynaha Syria Ahmed al-Sharaa waraysi uu bixiyay ku xaqiijiyay in ay jiraan wadahadallo dadban oo u dhaxeeya dalkiisa iyo Israa'iil shuruudo kala duwan ayaa labada dhinac kala wataan wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil shuruudo ayuu soo jeediyay Ahmed al-Sharaa shuruudo kale ayuu soo bandhigay laakiin ergeyga Mareykanka ee waddanka Suuriya Thomas Bragg ayaa hadallo wuxuu muujiyay ku aadan in Donald Trump uu doonayo Syria inay qayb ka noqoto waxa loogu yeero heshiiska Ibrahim heshiiskaasi oo Israa'iil dhowr dal oo Carbeed horay u dhaxmaray isla markaasna imika Trump uu doonayo inuu xeradaasi ku soo riixo wadamo kale oo Sacuudiga uu ka mid yahay laakiin su'aalaha la isweydiinaya waxa kale oo ka mid ah Ahmed al-Sharaa gudaha waddanka Syria arrintan dadka ma ka raaridi karaa maxay ku bedelinaysaa Syria yani xiriir dhanka diblomaasiyadda la samaysato Israa'iil oo burburisay cardadiqaana ka dhigtay awoodii military ee waddankaasi dhulna ka qabsatay markii xukunka laga tuuray Bashar al-Assad dhulkaasi ay ku darsatay dhul horay ay u qabsatay dagaalkii Carabta iyo Israa'iil dhexmaray 700yadii macluumaad amurahaasi ku aadan iyo ujeedada Donald Trump arrimahan uu ka leeyahay iyo waxa socda ayaan barnaamijkan kula fogori doonaa internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah ku soo dhawow qaari online qurba joogta dadkaygu barashadii quraanka iyo qalinkii aqoonto online lagu qorsheeyo qadka haatan laga helo waa qaari online qabso oo hadalkaygu waa qaari noqo oo quraanka ku baro online waa ubadko qurba jooga qadka iyo internetka casharada ka qaateen u kaalaya qaari online waxa uu diyaar idin leeyahay barashada maadooyinka quraanka kariimka higaada iyo asaasiyaadka diinta islaamka iyadoo ardaygu uu helayo hal week oo tijaabo ah inta uusan arday si rasmi ah uga noqon xarunta taasoo ah waxyaabaha ay gaarka la yihiin macallimiintu waa khuburo macallinka ugu yarna waxa uu leeyahay 5 sano oo khibrada waalidka ubadku u dhigtaan isagana free wuu ku baran karaa haddii uu u baahan yahay iyaduna waa fursad kale oo waalidku uu ka helayo qaari online haddaba si aad uga faa'iidaysato casharada qaari online la xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda maxamed Cabde ayaa soo akhriyay macluumaad amurahani laga qoray maxamed